gudoomiyaashayda xildhibaanada saxaafadda martinsharafta fadhisa kulli waxaan idinku salaamay salaamu calaykum waxaan rabaa horta mid yar inaan ka hadlo oo professor Rabi uu ka hadlay horta qareenkii markuu qof difaacayo kuma qorna qof baa u imaanayo oo dhibanaana markuu u yimaado wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaad difaacdid hanti gurigaan aan leeyahay ama gurigaan ma lihi wax kala saar waa maxkamadda qareenku waa difaaca qofkaan dhibanaan wax u soo sheegtay saas darteed waxaan leeyahay qodobka hadda la sheegay horta inaan la raacsiinin oo sidii hore u ahaa inuu ahaado taas halkaasaan uga baxayaa because qofka hal la xiro qareen hal la xiro muxuu ku mutaystay qofku difaacay muxuu ku mutaysana waa maya taas waa halkaas waxaan rabaa kale inaan raaciyo qodobka 14aad farqadiisa 3aad hal maya buuqa socda okay waxaan ka hadlayaa qodobka 14aad farqadiisa 3aad waxaan u malaynayaa sidii hore u ahaa inay dib ugu soo celiyeen wuxuuna ka hadlayaa 6 bilood ee ugu dambaysa ee sanadka wuxuu ka doodi karaa maxkamadda darajada koowaad oo kaliya marka laga reebo maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida wali waa sideedii oo wax laga bedelay ma jirto waa sax 6 bilood oo ugu dambaysa marka qareenku uu joogo waxa kaliya uu ka doodi karaa maxkamadda gobolka ee qaybta ciqaabta fudud oo 10 sano iyo wixii ka yar ah in meeshaas la raaciyo because maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa looga reebay inay tahay ciqaab culus inay leedahay sababtoo ah waxa ka jirta 20 sano wixii ka badan ilaa iyo dil sidaas waxa looga reebay inuusan gali karin waxaan qabnaa maxkamadda ciidamada qalabka sida maxkamadda ciidamada qalabka sidoo kaleeto ay dambiyadeeda u culus yihiin bay waxay u culus yihiin maxkamadda gobolka qayb dambiye culus ah jirta iyo qayb dambiye fudud ah waa in laga reebaa qaybta dambiyada culus oo ka bilowmanayso 15 sano ilaa iyo wixii ka badan oo dil ku dhamaada intaasna in la raaciyo intaas aan uga baxayaa waxa kaliya anoo si fiican u sii dhamaystiran u soo istaagay professor Ibi su'aashii uu soo jeediyay oo qareenka hal xir u yiri taas xoogaa pressure ka kicisay baan u soo istaagay hadda waan dib ugu soo noqon doonaa waan